kooxda Arsenal ayaa maanta heshiis rasmi ah la saxiixatay ciyaaryahan Soomaaliyeed kaasoo ka qalin jebiyay akaademiyadda kubadda cagta ee kooxda Arsenal halka ay ka soo baxeen ciyaaryahano hoggaan u noqday kooxdani. haddaba daawadayaal saaxiibayaal markale ku soo dhawaada warbaahinta October ee barnaamijkeena ciyaaraha waxaynu ku eegaynaa barnaamijkeena heshiiskan iyo wiilkan dhalinyarada ah ee Soomaaliyeed ee ku soo biiray kooxda Arsenal. saaxiibada la wadaaga oo shir gareeya inaan soo raacdaan isku daya aragtidiinana waa inoo muhiim. Malik Hakim Mohamed Hashi oo ah ciyaaryahan asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya kana tirsan da'yarta kooxda Arsenal ee dalka Ingiriiska ayaa maanta saxiixay heshiiskiisii ugu horeeyay ee xirfadeed ee kubadda cagta ee uu la galay kooxda faca weyn ee Arsenal sida lagu baahiyay bogga rasmiga ah ee naadigaasi. Malik oo ah ciyaaryahan xirfadle sare oo ka ciyaara qadka dhexe ee garoonka kubadda cagta kana soo baxay akaademiyadda caanka ah ee Haaland ee kooxda Arsenal kuna biiray sanadii 2022 ayaa ka dhigan in uu noqonayo ciyaaryahankii ugu horeeyay ee asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya ee ka soo qalin jiita goob ay ka soo baxeen ciyaaryahano waaweyn oo soo hogaamiyay kooxda kubadda cagta Arsenal sida Bukayo Saka. da'yarkan ayaa sanadihii la soo dhaafay ka mid ahaa ciyaartooyda ugu bandhiga wanaagsan ee kooxda da'yarta ee Arsenal gaar ahaan heerarka 18 iyo 21 dhalinyarada ay da'doodu ka yar tahay isagoona muujiyay horumar joogto ah. taa ayaana sabab u noqotay in loo dalacsiiyo heerka sare ee kubadda cagta isla markaana loo soo bandhigo qandaraas xirfadeed oo rasmi ah. heshiiskan cusub oo ay goobjoog ka ahaayeen waalidiintiis waxa uu ka dhigan yahay in Malik si rasmi ah uu uga gudbay heerka da'yarta ee ciyaaraha una noqday ciyaaryahan xirfadle ah oo qandaraas rasmi ah kula joogi doona kooxda Arsenal. falanqeeyayaasha ciyaaraha ayaa saadaalinaya in 17 jirkan asal ahaan Soomaaliga ah uu 3 sano ee soo socotay noqon karo mid ka mid ah ciyaartooyda ugu hibada badan ee Arsenal isla markaana mustaqbalka ka dhex muuqan doona horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska. saxiixa heshiiskan ayaa loo arkaa tallaabo weyn oo horumar u ah mustaqbalkiisa ciyaareed iyadoo la filayo inuu soo hormariyo isla markaana mustaqbalka ka mid noqdo kooxda koowaad ee Arsenal.